السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin meel kasta aad joogtaan. Waxaa la yiraahdaa Dr. Samiira Xasan, waxaan ahay dhakhtarad ka shaqeysa daryeelka asaasiga ah ee GP ah waddanka UK. Wararkii baa batay oo meel kasta ka imaanaya Facebookyada iyo social mediaha iyo WhatsAppyada. Marka dadku way wareereen, anigu waa ku dhex wareeray. Marka maanta waxaynu ku talagalnay insha Allah inaan ka wada hadalno tallaalada COVID-19 aan idinka wacyigeliyo tallaaladan cusub oo soo baxay dhammaadkii sanadkii hore. Sidaynu ognahay COVID-19 waa cudur neef mareenka iyo sanbabada ku dhaca. COVID-19 waa cudur halis ah, waana cudur dilaa ah oo adduunka oo dhan ku faafay. Dad iyo dhaqaalana waxyeelay. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa u dhintay xanuunkan adduunka oo dhan. Inta infectionka laga baaray oo qabtana 100 milyan oo qof ayay maanta ka badan yihiin adduunka oo dhan. Waddankana aynu joogno ee UK-na in ka badan 110,000 oo qof ayaa ku geeriyooday xanuunka kan. Waqtigan xaadirka ah in ka badan 22,000 oo qof ayaa dhakhaatiirteena jiifa oo aad u xanuunsanaya. Maalin walbana 200 oo qof oo dhimanaya ayaa wararka laga sheegaa. Tirada dadka dhimanaya ama cisbitaalada la dhigaya way ka badan yihiin sidaan ku ogeyn berigu xanuunka Ingiriiska ka dilaacay bishii 3aad sanadkii hore. Marka COVID-19 hargab ma aha. Inta ay dishay 3 laab bay ugu badan tahay inta u dhimata fluga ama pneumoniada sanad kasta. Khaasahan waxay wax yeeshaa dadka madow iyo dadka Asiaanka ah. In 4 laab ka badan dadka caddaanka oo la mid ah. Seen ognahay Soomaali badan ayaa ku geeriyootay. Ilaahay ha wada naxariisto. Reerkoodana sabr iyo iimaan ha wada siiyo. Qof walba inaga mid ah, qof aynu garanayno oo bulshadeena ka mid ah ama qoyskeena ka mid ah ayaa u dhintay xanuunka kan. Sidaynu arkayno waxay khatar dheeraada u tahay dadkeena waayeelka ah. Waliba khaasahan waxay da'doodu ka weyn tahay 60 jir iyo dadka xaaladaha caafimaadka qaba sida sonkorta, wadna xanuunka, kansarka iyo dadka difaacooduba yar yahay. Maxay tahay astaamaha lagu garto coronavirus? Marka uu qofku qaado coronavirus, waxay qaadan kartaa ilaa 14 casho intii astaamaha ku soo baxaan. Sidaa daraaddeed, dad badan ayaa qof kale qaadsiin kara viruskan isagoon isba ogeyn. Dadka qaarkood waxay sababaysaa astaamo sahlan oo u eg hargabka, sidii xumad, jidh xanuun, qufac joogto ah, neefta oo dadka yara dhibayso ama dhadhanku iyo urku u ka guuro. Dadka waayeelka ah iyo kuwa nugul oo cudurrada kale qaba waxay khatar dheeraad u leeyihiin inay ka sii daraan. Khaas ahaan uu naqasku u dhibo iyo oksijiinku hoos u dhaca. Markaas waxay u baahdaan in dhakhtarka la dhigo. Laakiinse waxaa la arkay dad ay da'doodu yar tahay ama caafimaad horuba u qabay oo ay xanuunkani kaga sii darayso oo u baahanaya in dhakhtarka la dhigo. Walaalahay ka shaqeeya cisbitaalada waliba khaasahan qaybta daryeelka degdega ah ee ITU Intensive Care Unit la yiraahdo waxay ku soo arkeen dadkii da'yarta ku soo badanayaan waliba khaasahan qaar ay da'doodu tahay 40 jiro iyo 50 jiro oo ku soo badanaya Intensive Care Unitska. Marka haddaynu isla fahanno saameynta cudurkan COVID-19 muxuu yahay? COVID-19 dhaawaca ugu weyn wuxuu gaarsiiyaa sanbabada ama neef mareenka. Qofku markuu infectionku ka taweynaado, barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsama sanbabka. Dadka marka dhakhtarka la dhigo, waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka. Dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine. Waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unitka jiifa. Waxaa kale oo lagu caawiyaa faleebada biyaha oo jirka qoynaysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso intii ay ka bogsanayaan infectionka kan. Laakiinse ogaada, COVID-19 daawo ma leh. Waxaa la isku hadlaynayaa oo la sugayaa intuu jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid. Sida daraaddeed ayay dad badani ugu dhintaan xanuunka kani markuu virusku ka tanweynaado difaaca jirkooda. Tallaalku muxuu yahay? Tallaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeena. Waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yar oo ka mid ah hidde-sidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA. Spike proteinku waa protein yar oo ka taagan coronavirus kasta. oo waxa cascas aad ku aragtaan sawirka oo ka taagtaagan coronaviruska. Tallaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jidhkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan. Spike proteinkaas ayaa dhiigga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca.
difaaca jidhkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruskii runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka. wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan. marka jidhkaa la khiyaanaynaya oo si ay difaacaaga isu diyaariso markaad la kulantid viruskii dhabta ahaa. lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa. marka COVID-19 lagamaba qaadi karo tallaalada. faa'iidooyinka tallaalku muxuu yahay? tallaaladu dhowr faa'iidooyin bay leeyihiin. waxaa loogu talagalay inay yareeyaan ama kaa celiyaan astaamaha COVID-19 oo khatarta ah, inuu yareeyo tirada dadka dhakhtarka la dhigayo iyo inta u dhimanaysaba. guud ahaanna haddii dadka badankood la tallaalo, waxaa suurtagal ah inay yarayso faafitaanka viruskan bulshadeenna iyo dalkeennaba dhexdiisa, si aan hore uga soo baxno xayiraadda ama baandowga aan ku jirno. ogow, tallaalkan adigunbuu kaa celinayaa inaad aada ugu sii xanuunsatid coronavirus ama COVID-19, laakiinse kaama celinayo inaad la kulantid viruska oo aad qaadid ama aad dadka kaleba qaadsiisid, waayo hawadeenna iyo bulshadeenna ayuu ku jiraa. marka inta dadkoo dhan la tallaalayo, waa inaynu taxadir dheeraada qaadanaa. waa inaynu raacnaa talada dowladda oo ah inaynu wejigeenna xidhanno, khaasahan afka iyo sanka la daboolayo, inaynu mar walba gacmaheena dhaqno intaynu kari karno, iyo inaynu dadka kala fogaano ugu yaraan 2 mitir isu jirsano, aynaan aada isu dhexgelin inta xayiraadda ama baandowga laga baxayo. tallaalada UK laga fasaxay waa 3 nooc. waa tallaalka Pfizer-BioNTech ay samaysay qolo Maraykan iyo German isku darsatay. waa tallaalka Oxford AstraZeneca ay samaysay jaamacadda Oxford ee Ingiriiskeena ku taala, iyo tallaalka Moderna ay samaysay qolo Maraykanka ah. wax yarun bay ku kala duwan yihiin tallaaladu. tallaalada Pfizer-BioNTech iyo Moderna waxaa ku jirta maado la yiraahdo mRNA ama messenger RNA oo ah wax u eg qayb yar oo ka mid ah hidde-sidaha samaysa spike proteinka. tallaalka Oxford AstraZeneca waxaa laga sameeyey virus kale oo la dilay oo xambaarsan qayb yar oo u eg hidde-sidaha samaysa spike proteinka. 3 tallaalba aad bay shaqadooda u fiican tahay. mid walba oo lagugu tallaaloba aad bay difaacaaga u kicinaysaa. dowladdu iyo guddiga tallaalada u khaaska ah oo la yiraahdo Joint Committees of Vaccinations and Immunizations waxay soo saareen jadwalkii sida dadka loogu horumarinayo. dadka ugu khatarta badan oo ah dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunada horu qabay iyo dadka shaqaalaha caafimaadka oo ka shaqeeya safka hore NHS-ta iyo kuwa care home-yada ka shaqeeya ayaa dadka loogu horumarinaya. laakiinse waxaa lagu tala jiraa dadkoo dhan in la tallaalo aanay carruurtu ku jirin. marka markuu waqtigaagu soo dhow yahay, GP-gaaga ayaa kula soo xidhiidhi doona oo ku ballaminaya tallaalkaaga. in ka badan 13 milyan oo qof ayaa la tallaalay UK. aniguba tallaalkaygii ugu horreeyey waan qaatay. maalintii ugu horreysay waxaan dareemay damqasho yar oo gacantu damqanayso iyo culays iyo xumad yar. maalintii ku xigtay astaamahaas oo dhan way ga wada ba'een. marka astaamaha aad dareemi kartid tallaalka kadib waxaa ka mid ah xumad yar, jir xanuun, gacantu uu ku yara damqanayso ama culays aad dareemaysid, iyo daal. laakiinse ayaamo gudaheed ayay ku wada baaba'aan. badanaa astaamahan sheegay waa astaamo sahlan oo ilaa maalin ama 2 casho gudaheed ku baaba'aya. marka haddaad astaamahaas ku aragtid, waxaad u baahan tahay inaad ayaama nasatid iyo aad xanuun jabiye qaadatid, paracetamol ama xanuun jabiye kale sida ibuprofen. marka ogow, waqti ayuu qaadanayaa inuu tallaalka kiciyo difaaca jidhkaaga, ugu yaraan 2 wiig ilaa 4 wiig dadka qaarkood. marka way jiraan dad tiro yar oo aad ugu xanuunsanaya coronavirus muddo yar kadib markii la tallaalay, intaan la helin tallaalku fursad uu difaacaaga ku kiciyo. midda labaad, tallaalku wuxuu dhammaystirsan yahay markii 2 jeer lagu duro, inta u dhaxaysa 3 ilaa 12 wiig. laakiinse tallaalka ugu horreysa laftigiis wuxuu kicinayaa difaacaaga ugu yaraan 250%, qaarkoodna waxay sheegeen 64. marka tallaalka hore wuxuu dhaamaa mar walba tallaal la'aanta. tallaalka labaad markii lagugu dhufto, hadba tallaalku yahay, wuxuu kicinayaa ilaa 95% difaacaaga. waan ogsoonahay, waana fahmi karaa in warwar iyo baqdin laga qabo tallaaladan. qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu su'aalihiisa dhiibto oo jawaabtii sax ahayd in laga helo dadkii la weydiinayay. marka su'aalaha laga qabo tallaaladan waa badan yihiin, aan qaarkood hadda ka jawaabi doono. si fiican ma loo tijaabiyey mise si degdega ayaa loo sameeyey tallaaladan? waan fahmi karaa warwarkay dadka badankood ka qabaan sida dhaqsaha badan
oo tallaalkan loo sameeyey. waana run in sanad gudaheed lagu sameeyey, laakiinse waxyaabo badan baa ka dambeeyey. waxaa ka dambeeyey saynis yahanadii iyo cilmi baarista adduunka oo dhan oo isugu yimi si ay u sameeyaan tallaalka kan. dowladaha ugu waaweyn oo dhan lacag fara badan ayay kusoo shubeen cilmi baarista tan. shaqaalayaal iyo volunteers aad u tiro badan ayaana ka qayb galay. cilmiga ama technologyga la isticmaalay markii la sameynayay tallaalkan oo la yiraahdo mRNA technology wax cusub maaha. waana wax cilmi baaris lagu sameynayay muddo ugu yaraan 10 sanadooda. waxaynu joognaa maanta waqti uu saynisku aad u horumarsan yahay. tallaabooyinka oo ka mid ah tijaabooyinka lagu eegayo waxtarkiisa iyo ammaanka tallaaladan waa loo wada dhammaystiray. midna lagama gudbin. waana waxay gooni u xaqiijisay guddiga tallaalada UK, qolada MHRA, Medicines Health and Regulatory Authority. haddaan allergy qabo, tallaalkan ma qaadan karaa? tallaalka dadka badankood way qaadan karaan. allergiga la sheegayo lagama hadlayo allergiga aan u naqaan sanboorka ama jirka xasaasiyada leh oo eczema ama asthma. waa dadka allergy gooni u qaba maadooyinka daawooyinka ka mid ah ama dawooyinka qaarkood sida penicillin ama antibioticska. dadka ay og yihiin inay allergy daawooyinka qaar ka qabaan oo rekordka ugu jirta dhakhtarkooda waa inay si gooni ula kaashadaan GP-gooda si loo xaqiijiyo inay qaadan karaan tallaalkan iyo in kale. xalaal ma yihiin tallaaladu? tallaaladani kuma jiraan wax laga sameeyey xayawaan ama khansiir. kumana jiraan wax khamri laga sameeyey, weliba khaasahan tallaalka Pfizer-BioNTech iyo tallaalka Moderna. inta yar oo khamriga oo weliba khaasahan ethanol la yiraahdo oo ku jirta Oxford AstraZeneca waa in aad u yar oo ka yar inta laga heli karo khamiirka roodhida markuu samaysmo iyo muusku markuu bislaado. wadaadada oo dhan way isku raacsan yihiin inay saddexdu tallaalaba wada xalaal yihiin. DNA-gayga ama hiddasidahayga ma bedeli karaa? waa su'aalay dad badan ay ka baqsan yihiin oo aad uga warwarsan yihiin runtii. laakiinse tallaaladan waxaa ku jira wax la yiraahdo mRNA oo ah wax u eg qayb yar oo ka mid ah hiddasidaha samaysa ama DNA-ga samaysa spike proteinka. DNA-da laftigeed kuma jirto. midda labaad, DNA iyo mRNA waa kala duwan yihiin. marka sida daraaddeed mRNA-ga oo ah copy ma bedeli karo hiddasidahaaga ama DNA-gaaga. mRNA-ga markii lagugu duro kadib muddo yar kadib wuu burburaa oo dhiigga wuu ka baxaa marka uu difaacaaga kiciyo. wax jirkaaga ku hadhayaba ma aha. kuwaas waa siday u shaqeeyaan tallaalada Pfizer-BioNTech iyo tallaalka Moderna. Oxford AstraZeneca wax yarun buu kala duwan yahay. tallaalkaas waxaa ku jira virus la dilay oo aan tarmi karin. waa virus kale aan ahayn coronavirus oo la dilay oo aan tarmi karin oo la xambaarshay hiddasidaha samaysa spike proteinka. dhasha wax ma yeelaa? ma jiraan wax caddaynaya inuu wax yeeli karo dhasha ragga ama dumarkaba. midda labaad, maadooyinka ku jira tallaalada mRNA-ga mooyaane wax cusub maaha. waxaana ku jiraan daawooyinkii ama tallaaladii hore u jirayba. dumarka uurka leh wax ma yeelaa? dumarka uurka leh laguma tijaabin tallaalkan markii la baadhayay. sidoodaba dumarka uurka leh iyo carruurta yaryar lagama qaybgeliyo cilmi baarista, weliba qaybta hore, waana xeer ay leeyihiin. sida daraaddeed dumarka uurka leh lama wada siinayo tallaalkan COVID-19 taxadir ahaan. laakiinse dumarka qaarkood markooday horey khatar u leeyihiin inay COVID-19 usii xanuunsadaan, weliba khaasahan dumarka xaaladaha caafimaadka horu qabay sida sonkorta ama keliya xanuun ama wadna xanuun ama dhiigkarka, iyo dumarka ka shaqeeya safka hore shaqaalayaasha NHS-ta. dumarkaas dhakhtarkooda si gooni ula hadlaya ula kaashanaya si uu xaqiijiyo inay halis dheeraada ku jiraan in kale ayna u baahan yihiin tallaalkan. waayo COVID-19 markuu ku dhaco qof uur leh ay aad ugu sii xanuunsato waxay waxyeeli kartaa nafteeda iyo ilmaheedaba. ma kaa celin karaa tallaalku noocyada cusub ee coronaviruska dhowaan soo baxay? 3 tallaal oo UK laga ansixiyey waxay kaa celinayaan noocyada ugu badan oo coronavirus ee laga helo waddanka UK. waa yar yihiin tiradooda inta laga helay noocyada ka dilaacay South Africa iyo Brazil. midda labaad, noocyada cusub ee coronavirus ee ka dilaacay UK, South Africa iyo Brazil wax yar unbay ku kala duwan yihiin. waxay ku kala duwan yihiin qayb yaroo ka mid ah spike proteinkaas oo bedelmay markuu virusku xoog u tarmo. marka saynis yahanadu waxayna leeyihiin
tallaalku wuu kaa celin karaa noocyada cusub ee coronaviruska, waayo wuxuu kiciyaa difaaca jidhka oo la dagaalamaya spike proteinkii oo dhammaa, maaha qaybtii yarayd oo bedelantay keliya. laakiinse isbedelaada ku dhacay spike proteinkaas waxay keentay inuu virusku xoog u faafi karo, heer ay 70% ka badan tahay coronavirusyadii hore aan ku ogeyn ingiriiska. maadaama ay fayrasyadu isbedelaan, waxaa weli socotaa cilmi baaristii lagu kobcin lahaa tallaalada aan hadda haysano si ay uga hortagaan noocyada cusub markay tarmaan oo soo baxaan mustaqbalka. waxaa dhici karta inaynu gaadhno heer la leeyahay sanad walba coronavirus tallaal baa loo baahan yahay, sida tallaalka fluga aan sanad walba u qaadano oo loo bedelo noocyada cusub oo fluga soo baxa. ma diidi kartaa tallaalkan? mar walba waa go-aankaaga inaad tallaalkan qaadatid iyo in kale, wax lagugu qasbi karo maaha. haddaan tallaalkan diido, ma jiraan waxaan iskaga difaaci karo covid-19 ama difaacayga kicin kara aan iskaga celin kara coronavirus. mar walba iyo markii cudur kastaba laga hadlayo, waxaa muhiima inaynu jidhkeenna iyo caafimaadkeenna asaaska ka dhisno. waa wax joogto ah oo loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay cunto nafaqo leh inaan mar walba ku dadaalo, inaan had iyo jeer jimicsigeenna badsanno, iyo inaynu qaadano fitamiinada qaarkood, weliba khaasahan vitamin D oo qayb weyn ka qaadata difaaca jidhkaaga, inaynu hurdo fiican qaadano, iyo inaynu warwarka iyo stresska fara badan aan iska yarayno, waayo difaaca jidhkaagu dejiyaa markuu stresskaagu badan yahay ama hurdadaadu uu yaryahay. kuwaasi waa wax heer joogto ah oo mar walba loo baahan yahay. laakiinse haddaynu runta isu sheegno, ma jirto wax kaa celin karta coronavirus, mana jirto wax daaweyn karta covid-19. haddii uu covid-19kii u xumaa uu kugu dhaco, toonta, basasha, xabata soodaha, biyaha la badsanayo ama biyaha laisku uuminayo kaama daaweynayso covid-19, waayo covid-19 daawo ma leh. waxtarkoodu wuxuu ku kooban yahay daryeelka jidhkaaga inta uu difaacaagu iska celinayo ama dilayo fayraska kan oo aad ka bogsanaysid insha allah. tallaalku covid-19 ma ku siin karaa? saan horeydi ku sheegay, tallaalkani kuma jiro coronaviruskii laftigiisa, marka covid-19 marnaba kuma qaadsiin karaan tallaaladani. maxay tahay astaamaha la ysku arki karo marka aad tallaalka qaadatid? astaamaha aad dareemi kartid markaad tallaalka covid-19 aad qaadatid waxaa ka mid ah jidh xanuun, madax xanuun, xumad yar, iyo gacanta oo ku damqato ama culays aad dareentid. laakiinse astaamahaas ayaamo gudaheed ayuu dadka badankood ka baaba'aa. ma ku jiraan tallaaladan 5G microchips? runtii ma jiraan wax wararkan xaqiijin kara. wax caddayna ilaa la-aanka maanta lama arag, marka definitely wararka beenta ah ayay ka mid tahay. wararka la sudirayo aad bay u fara badan yihiin. fadlan iska ilaaliya waxyaabaha beenta layskaga gudbinayo social mediaha sida whatsappyada iyo facebookyada. badankood wax caddaynaya ma leh, marka fadlan iska ilaaliya waxa beenta ah intaydin aan su gudbin. fadlan cid waraysta oo waxaan ku takhasusay, khaasahan dhakhaatiirtiinna ama qof waxaa wax ka yaqaan, waayo haddii lasu gudbiyo wararkan beenta ah, naftiinna iyo cid kale aad wax yeeli kartaan, bulshadeenna ayaa khatar geli karta. marka fadlan iska hubiya intaydin aan gudbin, aynu isu gargaarno, aynu is ilaalino. soo koobid, coronavirus dawo ma leh. tallaaladani waa difaaca ugu weyn aynu maanta haysano in iskaga celin karno cudurkan halista ah ee covid-19. waxyeelada tallaalkan mar walba way ka sahlan tahay astaamaha ama khatarta covid-19. waa cudur dilaa ah, ha sahlanina coronavirus. haddaad warwar ama su-aalaba ka qabtaan tallaaladan ama si gaara uga warwarsan tahay xanuunkaad horu qabtay, fadlan gp-giina ama dhakhtarkiina la kaashada. inta ay xaaladuhu hagaagayaan, fadlan taxadir dheeraada qaata. sanka iyo afka daboosha, gacmihiina mar walba dhaqa, ha la kala fogaado inta xayiraada laga baxayo. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya wacyigelinta iyo warbixinta ku saabsan tallaalada covid-19. waa warbixin guuda, ma aha talo khaasa oo qof loogu talagalay. waxaan rajaynayaa inay su-aalihiin intii badnayd aan idinka jawaabay. haddaad wax su-aalo kale aad leedihiin oo guud ahaan, fadlan commentska kusoo qora. fadlan like iyo subscribe ku taabta. wararka saxda ah way badan yihiin. waxaad mar walba xaq u leedihiin in su-aalihiina laydinka jawaabo. anna waxaa idinku boorigelinayaa inaad wararka saxda ah aad raadsataan
oo dadka wax ka yaqaan aad waraysataan. markii aad warka saxda aad heshaan oo su'aalihiin oo dhan laydinka jawaabo, waxaa markaa muhiima inaan rabbi tala saarano. waayo dhakhtar waaxida boqolkiiba boqol wax kuu xaqiijin kara dunida maba jiraan. waxaa kani waa waxay saynisyahanadii iyo cilmi baaristii adduunka oo dhan isugu yimaadeen oo iska xaqiijiyeen waxtarkiisa iyo ammaankiisa. marka fadlan wararka saxda ah dabagala, su'aalihiina dhiibta oo dadka weydiiya, kadibna insha allah rabbi baan tala saaranaynaa oo aaminaynaa inuu ilaahay naga dulqaado xanuunka kani insha allah. waa inoo mar kale iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.